marka dadka islaamka waxaan rajeynaynaa dhulkaas waa dhul aad u ballaaran 60 mitir dhinac u yahay dhinacna 40 buu yahay waa dhul qaadan islaanahay inta aan sheegayno kayfiyaadka qaabkiisa annaga marka hore isku daynay inaan u istaagno dhisno deegaanka hadii aan nahay reer ah haddana waxaasna ka maarantaan dadka islaamka culimada waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka olol ee gobolka Galgaduud ayaa si wada jira u dhagax dhigay dhismaha xaruntan ballaaran oo lagu baran doono qaybaha kala duwan ee cilmiga diiniga iyo maadiga dhismaha xaruntan ayaa ka koobnaan doonta madarasooyin masaajidyo iskuulo iyo sidoo kale qaybo quudin lagu sameeyo ardayda wax ka baran doonta sida ay tilmaameen culimada iyo waxgaradka goobtan ka hadlay waxaana sidoo kale ay ka codsadeen jaaliyada ka soo jeeda deegaankan olol inay gacan ka geystaan dhismaha goobtan waaye awal deegaankan olol yiraahdo madrasooyin kala ka jiray oo yar yar ah oo koox midba meel tahay oo iska waaweynayn hadda waxaan ugu talagalnay madrasooyinkaas mid ka sii sareyso ka heer sareysan u bedelno inaan xitaa ka dhigno meel oo kuleej camalaho ilmuhu dadka wax ku baranaysan ka bixinin aduu meela jiifa u habayno meel kale wax lagu cuno u habayno meel goobaha wax lagu baranayo xitaa makaano cibaadada aan ku dhex sameeyno marka dadka islaamka waxaan rajeynaynaa dhulkaas waa dhul aad u ballaaran 60 mitir dhinac u yahay dhinacna 40 buu yahay waa dhul qaadan islaanahay inta aan sheegayno kayfiyaadka qaabkiisa annaga marka hore isku daynay inaan u istaagno dhisno deegaanka hadii aan nahay reer ah haddana waxaasna ka maarantaan dadka islaamka ama deegaanka ka soo jeedin ama mid ka sareeyo islaamka ilaahay kala ahaado وتعاونوا على البر والتقوى إلهي إليه ولا يالو دين الإسلام كقفكي ربوا إني كور نقطه ماشى نقله الشقيو ماشى دين الإسلام قال هرم مريو وقفك نلشيسيو آخريس ونكسناته إلهي رديس الوهلية هذا الكوناجيسي أرنتان مناسبة كهالله علماء حان عضينا يا إن بالشدة قيبه هذا كل جد سن قان كسواب حي أن أرنتان ماركتي rabno inaan ku fulino uga qayb qaadano wanaagsan oo culimada ka soo sheekaysay qofkii qalbiga ka jeclaada ajir buu ka helayaa qofkii dhaqaale ku bixiya ajir buu ka helayaa qofkii maskax iyo aqoon ku beeriya ajir buu ka helayaa si guud waxaan ula hadlaynaa dadka islaamka si gaarana waxaan ula hadlaynaa dadka aqoonta leh ama yacni dhaqaalaha haysta oo ka soo jeeda olol iyo wadankan inuu si gaar ah uga qayb qaato intaas baan codsanayn meeshaan dadka taagan oo culumada leh oo dhalinyarada leh oo odayaasha leh oo uquusha leh oo dumarka leh waxay codsanayaan wixii muslina oo baahi waxaana keentay aan u baahanahay diinta iyo waxbarashada diinti waxbaa noo dhisan waxna waa naga dhiman yihiin waxaan naga dhiman in la dhamaystiro oo kaalmo u helno oo muslimiinta kaalmo uga helno yaa meesha isugu kaaya keentay waxaan doonaynaa meeshaas madrasada laga dhisayo oo wax ku baranayno waa naga dhiman tahay iskuulkii waa noo dhisan yahay masaajidii waa noo dhisan tahay waxbarashadii waxbaa noo socda waxaan naga dhiman in la ku kaalmeeyo oo muslimiintu nagu kaalmayso oo dadka ilaahay kaalmaha u diray nala kaalmeeyaan oo anfaca naguna kaalmeeyaan oo af naguna kaalmeeyaan oo adimo naguna kaalmeeyaan waxaan codsanaynaa haddaan gabdhaha ololanahay waxaan ku yiraahdaa madrasaadkii oo dadka caruuraheena wax ku bara lahaayeen iyo waayeel intaba yaan dhismo doonaynaa dhul ballaaran weeye dhulkaani waa dhul 60 u dhiftay 40 ah حياشي انتاس waxaan doonaynaa dadka islaamka wixii af iyo adin nagala qayb qaadan karaa inay nagala qayb qaataan qowl iyo ficil ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo qadaa asaga leh dadka islaamka inta inay nagu bogaadiyaan dhul ballaaran weeye oo mataqaanaa dad dumar iyo rag iyo mataqaanaa mujtamaca qaybihiisa kala bedel inay wax ku bartaan la rabo arintaas waxaan rabnaa dadka islaamka oo amana arkaya ama maqlaya inay qayb ka qaataan sidaas baan dadka islaamka ka codsanayna meeshan waxa isugu soo baxay rag iyo dumar culimo iyo aamo iyo odayaal deegaanka la yiraahdo olol ka socda waxaan doonaynaa in la kala qayb qaato dhismaha madrasada diinta islaamka lagu faafinayo qaasatan culumta diinta oo kala duwan qabyaalada kala duwan hadda koor qaybo badan way noo dhisnaayeen qaybo kalena in insha Allah gaarna doonaynaa
waxaan doonaynaa islaamka ilaahay wax siiyey inay wax nagala qayb qaataan insha allahu tacaala